adeer soo aragtaa doorashada Soomaaliya mise Xasan Sheekh Maxamuud ma qalba madaxweynenimo anu doorashadaas waxaan u arkaa walaale inaan galnay 4 sano oo gumaysi ah sida loo ceysanayo waa aragtaa adoo lagu nacsan yahay bariha ka tagi عليكم السلام ورحمة الله. والله سؤال أركض دور الشدة الصومالي مسحت الشيخ محمود مدحوني ما موقل معه. والله اللي وهم أركض دور الصومالي دور الشدة هذا أي كشيء حسن الشيخ محمود وكوجول يستي. دور الشدة صح كل على إنسان بلا مثلا وشخصيات ذا. حدا عم يسمح كل هذا. وعن كل حسن الشيخ محمود وأنا برش الله قبوا. تاريخ بضم واحد ويكسر شقي الصومالية. مدحونا الصومالي ودلك الصومالي بوها وحيانا أنا فدا ودلك أوجيستي عمل واحد ويدبت الجبرتي بهاتني يقول له جداسية على ما هذا أنا كنت صارين هذا عن محوي حسن الشيخ محمود أنا كعم بارني وحيين قبل كان مذوق هذا أنا وأدورنا هذا عن شغلنا إن بدن بوقح يبربر كتير أنتم مدحونا سواها وقحنا واحد كم بذهايد لبقى قبيل بديجان كان دجا وهوية دارات حسن الشيخ محمود مدحوني اللي قفل إنه دلك النبض مصطلحات كواجو قبيلك وكل شيء وكان بنجري قبيلك دارات وديجان كلا تجنا حوينه دلك deegaankii Puntland ay ka deganeen gobolka Mudug inay waxa weey meeloydii iyo hooyadii iyo sheebkii iyo sheekhi si siman oo wadar in loo wada qaxay oo dalkii loo baneeyay dibta madaxweynaha markii aan ku baranay caaw inuu kursiga noo fadhiyo waan u nasiib daro assalaamu calaykum maama calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh soo aragtaa doorashada Soomaaliya ka dhacday Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ma qalma Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yahay caalamka waa laga yaqaanaa dal iyo ari iyo xoolaba iyo muslimba waa yaqaanaan hase ahaatee waxa weeye anigu uma qabo hadda doorashadaas inay sax ku dhacdo uma qabo waxyaalo badanna waa ka arkay markaan fiirsaday hadda waxa weeye ninkaas farmaajo 4 sano uu maqan yahay nagama maqnay waa nala joogaa dal dhisan iyo dawlad dhisan iyo wadan nabad ah buu ka tagay waana joogaa 4 sano waa soo dhamaanaysaa waxaan rajaynaynaa inaan helno mar labaad baan rajaynaa laakiin ninkan Xasan Sheekh Maxamuud la dhahayo dal iyo dad midna kama tagin xilka markuu qabtana wuxuu dhahay ilaa Burtunle baan leenahay ilaa Garowe waxa weeye anaga waxa dhexda naga jabiyayna waa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani baan naga jabiyay waligiisna waxyaalahaasi waxyaalaha uu ka xishan buu ku kacaa assalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullahi soo aragtaa doorashada Soomaaliya mise Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ma qalma fikirkaaga waxaan u arkaa doorashada Soomaaliya inaan doorasho ka dhicin baan u arkaa because waxa weeyaan doorasho xalaal kuma bilaaban xalaal kuma dhamaan xaqna ma ahayn Xasan Sheekh Maxamuud hadda ka hor madaxweyne wuu soo maray waxa weeyaan wuxuu qabtay waan oogay waxa weeyaan haddana waxaan u aragnaa inuu wixiisii bilaabi doono maadaama uu shaqo lahaan jiray shaqadiisii u aragnaa dalkana doorasho kama dhicin Imaaraad iyo Kenya ayaa doorashadu ahayd ma ahayn mid Soomaali matasha ma ahayn mid xor iyo xalaal ah ما هي من حق كل عضي أنا وحان لنا هاي تيورا أول برني تنا وحان لنا بسم الله الرحمن الرحيم بانو لنا وحان لنا هاي تدك الصوماليات ودما شعب الإسلام كردم بإيجان يدور الشرع لما أنتوا حلوة كحم هذه because حويان محمد عبد الله فرماتشو oo dalka Soomaaliya u soo baxay 4 sano soo maamulayay wuxuu muujiyay xalaal iyo xaq iyo xorriyad buu muujiyay wuxuu soo celiyay dalkii Soomaaliya oo lumay oo burburay aniga waxa weeyaan waxa la Xasan Aadan Guuleed waxa weeyaan anigu waxaan ahay kilil 5 baan deganahay dawlad xalaal oo xor baan deganahay darisna waan nahay dalkana waa dalkaygii waxaan ku farxaa wuxuu soo maro xalay waxaan farxad gelin baa dhacay waxa weeyaan waxaan u tahnideynaynaa 110 ka farmaajo dooratay waxaanu cambaaraynaa inta kale oo aan dooran because qofka wuxuu yahay lagu doortaa waxa weeyaan hanaankiisa bay ku doorteen 110 kuwana hanaankii bay ka leexday Soomaaliya waxa isu kaashaday xaq darro waxaanu leenahay allaha sharkiina naga duw anaga nama matashaan shacabkii idin soo doortay meydaan matalin Kenya iyo Hawraat iyo Fadaraad matashaan Imaaraad bad matashaan nama matashaan waxaadna matashaan ma leh waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa in sha Allah inay ciribtayadu si khayr ku dambayso idinkana waan idin eegan doonaa waxaad samaysaan laakiin doorashada waxaan haysanaa Imaaraad iyo Kenya inay Soomaaliya hadda maamulayso sharkiina Allah naga duwo assalaamu calaykum calaykum assalaam
walaal soo aragtaa doorashada Soomaaliya mise xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ma qalmaa fikirkaaga xasan sheekh maxamuud waa ninka awal badda Soomaaliya macnaha gabdhihii raray waa ninka awal kadii la ku roon yahay takadii iyo dhulkii iibsaday dawladda ninka la yiraahdo gabdhihiina raro iibsaday waxaan leeyahay hadii kulli ilaahay hadda meesha ku keenay gabdhahana ha naga rari baddana ha naga gadin xasanow macnaha huura Kenyaatna nooga ilaali adeerow xil baa lagu dhibay xilka xaji farmaajo waxaan leeyahay farmaajo nabad iyo nolol ku noolow sharaf baad Soomaaliya uga tagtay wanaag baad uga tagtay ayadoo lagu rabaad ka tagtay shacabka ku xaysanayad ka tagtay farmaajo nolol waan ku leeyahay guul iyo waxaan ku rajaynayaa iyo gobonnimo nolol waan ku leeyahay xasan sheekh maxamuudow Soomaaliya farmaajo sida loo ceysanayo waa aragtaa adoo lagu nacsan yahay bariha ka tagi kulay waa arkaaday xoogaa akoomka hadda waa ka maran yahay waana ku salaamaya adeer macaan adeer soo aragtaa doorashada Soomaaliya mise xasan sheekh maxamuud ma qalbaa madaxweynenimo anu doorashadaas waxaan u arkaa walaalee inaan galnay 4 sano oo gumaysi ah marka waxaan leeyahay waa laga bixi doonaa halo dulqaato 4 sano gumaysiga maxaad ku tirimsan muxuu gumaysi ku yaabaa waxaan ku iri dalku madaxweyne ahaa dawlad buu lahaa madaxweynaha xilliga jira waxa buu diidaa waxa buuna yeelaa dawladaha caalamka waxa uu diido waxa ogolaan kara madaxweynaha ka dambeeya wuxuu yeelana waxa diidi kara madaxweynaha ka dambeeya waxa markaati aan gumaysi galnay maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu diiday qaadka Kenya wuu joojiyay soo wax kasta baa ka yahay haddana ugu fasaxan yahay ma waxa fasaxay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha hadda loo doortay miyaa fasaxay mise cabdullaahi farmaajo bedelay codkiisii hore yaa fasaxay hadda wuu socdaa Soomaaliya wuu ka degay maanta meel kasta Soomaaliya tahay wuu ka degay sababta marka uu ku degay waxa weeye waa dal aan laga xigin saacan gumaysi ugu galna qaatibeen wata farmaajo maxaa ciilay mise maxaa dib u dhigay waa sidii kartaa farmaajo kulay doorasho la galay doorashaduna dadka la soo doortaa waxay ku yimaadeen qaab aan sax ahayn sidaas aqlabiyada looga qaatay farmaajo saasana looga qaatay assalaamu alaykum salaam walaal soo aragtaa doorashada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ma qalmaa bay kula tahay fikirkaaga anu xasan sheekh maxamuud marna madaxweynaha loo doorto ma dheen maxaa dhacay waxaan ku iri ninka wax walba hadalladii isku hadlay YouTube-da ay yaalaan sida dhahayo askariga $100 qaadan karin oo iska bax mideeda kale dhahayo muqdisho sida markii qarax ka dhaco anigu wax walwal ma qabto laakiin meelaha kale markii qarax ka dhaco waa walwaliyaa buu yiri laakiin xasan sheekh maxamuud anaga marna madaxweynaha loo doorto ma dheen farmaajo maxaa helay waad dhigi kartaa mise maxaa wareegi ka reebay farmaajo wiya ka reebay islay assalaamu alaykum asalaam waraxmatullaah doorashooyinka Soomaaliya socon walaal sida doorashada Soomaaliya oo aragtay xasan sheekh maxamuud inuu madaxweynimo ku guuleysto mise ma qalmaa bay kula tahay fikirkaaga fikirkayga haddaan ka dhiibto ilaahay wuxuu qadaray weeye sidii rabbi u qadaray bayna u dhacday waxaan la dhihi karaa waa la iskugu shubaday cidna ma doorateen xasan sheekh maxamuud marka waxaan isleeyahay waan qadar rabbi ku dhacdo saasaan isleeyahay farmaajo maxaa helay waad dhihi kartaa wareegga koowaad ilaa ninka la tartamay waaye maxaa daaray waad dhihi kartaa fikirkaaga farmaajo waxaa helay baan isdhihi karaa codadkii oo looga shubay la iskugu shubay gurubaysi ahaa oo lagu shubay xasan sheekh maxamuud dan iyo ugu shubay baa reebay nimankii assalaamu alaykum salaam waraxmatullaah doorashada Soomaaliya soo aragtay xasan sheekh maxamuud inuu madaxweyne noqdo ma qalmaa anigu waxaan aaminsanahay xasan sheekh inuu qalmo inuu madaxweyne noqdo aniga farmaajo aan taageersanaa laakiin farmaajo cod si dimuqraadi ah baa looga raayay marka waxaan aaminsanahay jaaniska ilaahay hadduu u qadaray madaxweyne xasan sheekh waxaan aaminsanahay in la soo dhaweeyo oo laga hor imaan la tijaabiyo markii hore waxa laga yaabaa bilowgii inuu xoogaa khaladaad sameeyay laakiin hadda waxa laga yaabaa hadii inuu xoogaa khibrad ka qaatay marka waxaan jeclahay in la soo dhaweeyo oo jaanis la siiyo farmaajana waxa laga yaabaa inuu mar kale noo soo noqdo waa u baahanahay isaga assalaamu alaykum salaam walaal soo aragtaa doorashada Soomaaliya oo xalay dhacday xasan sheekh maxamuud ma qalmaa madaxweynenimo bay kula tahay fikirkaaga adiga والله فكر كيغا ما يعني حسن على الخير وشبلا حسن على الخير فكره وشبلا ها كله ما حسا وترنا waxa saa u yiraahday de wadanka marba ku soo fashil xasan marka ka hadda in marwaad lagu celiyo meeseen
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ولا سؤال دورشة الصومالية حتى الشيخ محمود موقل بمدحونيمه way kula tahay fikirkaaga fikirkii hataa ka dhibto ninka uma qalmad maxaad ku tiri uma qalmad madaxa ma madax la ogyahay weeyso ninkan madax uu soo jiro xun uma qalmo Soomaali السلام عليكم. عليكم السلام soo aragtaa doorashada Soomaaliya xasan sheekh maxamuudna mooqal madaxweynimo doorashada Soomaaliya waxaan arkaa in ay tahay horta xilliga ay ku soo beegantay sida ay ahayd si u dhacday waxaan u arkaa in doorashada Soomaaliya ay ka dhacday in xilligii hore xildhibaanadu ay soo baxayeen ay ku soo baxeen qaab khaldan oo aysan sax ahayn sida ay ku soo baxeen maadaama xildhibaanadu qaab khaldan ay ku soo baxeen haddana ay dhacday in doorashadii madaxweynaha ay iyaduna u soo baxaan qaab corruption anigu kallay team waxaan ahaa nabad iyo nolol kallay teamkaas doonta la dhacday marka waxaan leeyahay insha Allah madaxweynaha kallay hadda ka noo soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud Allah asaga ha noo wanaajiyo عليك السلام sabay soo aragtaa doorashada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud mooqal madaxweynimo fikirkaaga adiga والله فكركي مايا maxaa ku diiday xasan sheekh maxamuud horeba u soo aragnay wuxuu yahay isuu dalka u galay marka hadda idii qof dalkeena si hogaamiye ama dawladdu ahaa si dhasii ma ahan farmaajo maxaad dhigi kartaa wareegga ugu dambeeyay ka reebay mise maxaa daaray waxaa daaray ayaga ugu shubay عليكم ماما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماما سو aragtaa doorashada Soomaaliya mise xasan sheekh maxamuud madaxweynimo mooqal maan waxa weeye anigu hadda madaxweynaha ma caayinayo laakiin anaga taageeradayadu maxamed cabdullaahi farmaajo bay ahayd hadii aan dadweynaha ee Soomaaliya degan waliba aan deganahay wadamada Puntland markay ka soo harto anagu hadda madaxweynuhu soo noqday ninka la dhaho xasan maxamuud wadanka waxbuu kaga tagay farmaajona uu ka dambeeyay farmaajona wixii uu qabtay waa la arkay asagana wixii uu qabtay waa la arkay haddana uu soo noqday hadda waxa leeyahay Soomaaliya matala markii hore ma matalayn عليكم السلام soo aragtaa doorashada Soomaaliya mise xasan sheekh maxamuud madaxweynimo mooqal maan horta Xasan Sheekh Maxamuud marka hore waxaan leeyahay kursiga loo doortay Allah ku guuleeyay anigu laakiin ma taageersanay hadaa fikirka kala hadlo aniga waa laga adkaaday maxamed cabdullaahi farmaajo taageersanaa saadarteed anoo maxamed cabdullaahi farmaajo taageersan doorashadii haddana mar haday dhacdo Soomaaliya si xor loo tartamay waan ku qalacsanay sida looga adkaaday maxamed cabdullaahi farmaajo tartan buu galay waana la ka adkaaday laakiin waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha cusub xilka Ilaahay ku guuleeyo diyaar walaal soo aragtaa doorashada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu ku guuleysto xilka madaxweynenimo maya xasan inuu madaxweyne noqdo ma ahayn anagu waxaan taageersanay maxamed cabdullaahi farmaajo anagu diyaar ma nihin inuu noo ahaado xasan sheekh maxamuud madaxweyne noo ahaado ma rabni maxaa ku diiday mise maxaa ku dhaliilayn annaga xasan baraf sanadkii hore ogeyno kolleyn waa dal shay u shaqeeya gabdhaheena Soomaaliyeed bukata oo dalkeena bukata haddana waa nin hawiyaad anaka hawiyaad sabab mudane u jeedaa hawiya la taamiya hawiya maxaa ku leeyahay ya hal ku leeyahay oo inaad arkay waxaan ku dhacayaa laakiin anigu waxaan midna warnaa farmaajo maxaa dib u dhigay mise maxaa helay inuu madaxweynimo ku soo bixi waayo farmaajo wareegga saxaad waxa helay Saciid Cabdullaahi Deni baa wuxuu u shubay Xasan Baraf anagu saa diyaar ma neen anagu xarnay midna rabnay farmaajo rabnay anagu taageerno